Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Haddii jeer waxaad iga barateen inaan sheekooyinka jacaylka idiin soo marsiiyo habada. Waxayna socotay sheekadii Hoodo iyo Khaalid. Waxayna joogtay Hoodo oo habarteeda kasoo dhuumatay ama kasoo tagtay una soo laabatay Khaalid oo baska dhexdiisa ku sugan. Haddana kusoo dhawaada baartigii labaad insha Allah. Khaalid isagoo fikiraya oo baska ku dhex jiro ayaa Hoodo u timid, waxayna ku soo jeedisay cod dabacsan. Khaalid markuu arkay inay qoftani Hoodo tahay ee labadooda oo kaliya ay yihiin, ayuu wuxuu ku fikiray in maanta wixii qalbigiisa ku jiray oo uu sheegto. Kadib waxay Hoodo su'aashay waxa dadka ka reebay oo cidladani dhigay. Isagoon ka jawaabin ayay haddana weydiisay dhowr su'aalood, balse Khaalid intuu qalbiga iskala hadlay ayuu go'aansaday inuu sheegto ama uu caddeeyo waxa uu u qabo Hoodo. Wuxuuna yidhi, walaal Hoodo, muddo sannad ah ayaan waxaan rabay inaan kula hadlo, balse iima suuragelin. Hase yeeshee waxaan maanta sheegayaa inaan aad kuu jeclahay, ama aan kuu sheegayaa inaan aad kuu jeclahay. Waan ogahay inaad waddanka ka dhoofayso. Waxaan kaloon ogahay in reerkaagu doonayaan inay kugu daraan ama ay kuu dhisaan wiil aad qadada wadaagayseen ama wiilkii aad maanta wada fadhiseen. Hase ahaatee, waxaan ahay qof ku boholyoobay oo ilaa xad ku jecel, balse go'aanka adiga iska leh. Hoodo waxa ay ku duxay ama ku socday hadallada Khaalid iyo galgacaylka uu la hoos joogo. Markaa Hoodo kumay degdegin go'aankii. Waxay Khaalid u soo jeedisay inuu sheekada dib u dhigo oo uu ka qayb qaato dalxiiska. Khaalid waxaa qalbigiisa saaqay dareen farxadeed, wuxuuna oggolaaday inuu dalxiiska ka qayb qaato. Khaalid iyo Hoodo way wada socdaan. Socod qabow ayay ku laafiyoonayaan, waxayna isweydaarsanayaan kaftan galgacayl ka muuqdo. Iftiinka cadceedda oo jihada galbeed ka xigta, iyo dhulka cagaaran iyo jawiga xasilloon iyo neecawda macaan ayaa muujiyay shacnigooda oo midba midka kale ayuu hoosta ka eegayaa. Lagu darsadeen kooxdii ardayda ahayd, balse ardaydii ayaa aad u soo wada fiirisay siday iskugu dhow yihiin ama sida ay isu fahmayaan iyo kaftankooda. Markiiba waxaa lala boobay sawirro, farxad iyo qosol iyo reereynta ka muuqata waa mid saa'id ah. Wiil ka mid ah ardayda ayaa si kaftana u yidhi, dalxiiskeena waxaa aad u nuurinaya Khaalid iyo Hoodo. Inta la wada qoslay ayay gabar kalena tidhi, wacnaan laheeda hadday lamaano noqdaan. Waxay tamashleeyaanba waxaa meel gaaban kaga soo baxday Hoodo habaryarteeda iyo wiilkii lala rabay, waxayna dareemeen in labadani xiriir ka dhexeeyo. Sheekadani halkaas ayaan ku soo ekeenaynaa. Waa ay dheer tahay, mana noo suurtogalayso inaan sii dhammaystirno. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Baartiga saddexaad ayaysan ku dhaafin. Haddii marka hore aadan noo sabab garanin oo aadan nagu xirnayn, laakiin dhegeystayaasha aad ka mid tahay, waxaan ka codsanaynaa inaad noo sabab garayso. Aad ayaad u mahadsan tahay. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.